ما واحد الله هي ما بنانا إنك على قول الصومالي ما واحد الله هي إنك قولان ما بنانا ودين تيدين حرام تنميسي إذا كحرام تنميسي حمل بده هذه أي مدين كري لا أي هي كسمايي حمل بوي سكاني كري لا أي هي قروي حمل بوي سكاني كري لا أي هي أو ما أنت كده بيسسي كالفوقانية من لماذا ودون يا واضح iyaga ayaa u baahan maanta yeeyba cunaysa yeeyda in laga xoreeyo waxa aynu ku jirnay toddobaad dabaaldega ummadeennu ay dabaaldegayso ama ay faraxsan yihiin waa mid ka dhashay dabaaldega iyo farxadaasi waa mid ka dhashay xasuus iyo aragti mustaqbal xasuus iyo aragti mustaqbal ma aha mid laab la kaca oo maanta intuu bilaabmay berrina iska dhammaanaya ma aha mid cidna lagu nacayo cidna lagu jeclaanayo bal waxa weeye waa xasuus iyo dareen waa dareen xasuus iyo doonitaan waa xasuus waa taariikh وتاريخ حسوس له أو مر والبقول أركو مدرس أو كعصن أما محن كل هذا يدبه قيسة وحصوك عنا يوحوي وتاريخ حسوس أي كل هنت هاي أو أن مرنا بك بأين مرنا با سيدا أي وقو أضع أي أذكتاي وحسوس يدونيتان تاريخ ذي أدولك وحا أقول لي قف تاريخ ذي سيدوبة تاريخ ذو وحبيك تاريخ ذو خلدات كاقين ويصحضا خلدات كاقين ويصحضا أو ويكاددا وحي وناك سناء إلا سمية دتكي كاهو الرئي سمية إنه ويكوددا خلدات كي دتكي هور سمية لكنا عين ويكاددا تاريخ ذو حوي ومرايد وقفك كو حصوصتو كل بدبو عليه وعجلدو دبو عليه أو إسبربر نقو وقتك وجوغو هي وحي الصومري هدي وناك تهي هدي برواقة تهي هي هدي علا تهي هي هدي أبار تهي ودرين دوني تنوية أي كانت دوني تان كام حاكيني حسوس دا أيا كانت وحا أي حسوسيهين أيا كانت dhib bay soo mareen dil bay soo mareen gumaad bay soo mareen qax bay soo mareen si dhib yar kulloo iloobaya miyuu yahay xasuustaas ayaa doonitaankana keentay ninbaa waxaa la yidhi cadowgaagu waa ayo wuxuu yidhi cadowgaygu waxa weeye hadba waa ka imuuq dhaba buuri wahadba ama waa ka imuuq dhagra ama imaan dhagra waa ka imaan dhagra ama imuuq dhagra
محوغة جيدا واكا إيمان دقراه واكا مان كيغا دقراه إيا مستحضينا إيه دقر دوسا كسارة إيه وحانا نهاين يقول شيغا إيه وحانا نستمين يقول شيغا واكاسبو أما واكا موقعي دقرابوري موقعي أركتدي نعب دقراه وحانا نهاين يقدقا وحانا نهاين يقول شيغا maanta la iskuma haysto dhul la iskuma haysto diinna la iskuma haysto waxa maanta la isku haysta waa maxay waa gooni ugo madax banaani ma madax banaanaan kartid iyo waan madax banaanaan kara war ma inta waxaan ahaynba inta waxaan ahayn idima jiro انت وحان اهين كلمتنا وحان اهيني ما انت مجد وحا يدبال دقيان ومداسي وحا ويي ومدح بناني ودونيتان لبا لقول دقال لمايا لبا عرفي موت اما لبا شاد عيال صوحي دامرك للا دقال لمايا لبا عرفي شارك كواد وامحي شار ديريا لصوحنا شارك لبعض وامحي شار بدنما يا لصوحنا شار بدنما يا لصوحنا لبعض هدان كوكلا هريو أولاد الدين علماء ما انتهى أرنتها أي بلابنته سند والبوال دبال دغه قفك مؤمن كي قفك كلا مؤمن كا مر والبا انو لا درين نقض هدي uu la dareen noqon waayna dareenkiisa qiimeeyo waa iimaanka ay ku jirtaa haduu dareenkii inuu la dareen noqdo haduu la dareen noqon waayna dareenkiisa qiimeeyo iimaanka ay ku jirtaa hadaan macsiyahay dareenkiisa iimaanka ay ku jirtaa markasta oo xaaladda la soo hadal qaado ma abaaraan halka khilaafku ka taagan yahay mashaakilku ka taagan yahay waxa ay daydayaan meel kale oo ku dhow ay daydayaan oo ay u soo qabadaan shalay amxaare u tagay baa ay lahaayeen amxaaro ayay u tagay maalinba waxa ay daydayaan geed ay ku soo gabadaan ayay daydayaan waana in gaara u weeyaan xaqiiqada meesha taala iyo dareenka meesha yaalana waa iska indhatiraan war umada inta leeg maxay ka qaylisiyay oo isweydiin ma waa qofku waa diinti ilaahay buu sidaa xukumkii ilaahay buu xambaarsan yahay isweydiin maayo war ummadda intaa leegi maxaqana isugu wada tagtay ma dulmibay ayay isugu wada tagtay maxaa ka dambeeya waa maxay sababta ummadda intaa leeg ka wada qaylisiiyey waa maxay sababta intaa leeg ay ummaddaas intaa leegi ay u diiday midnimadii Soomaaliyeed ninka sheekha culimada ilaahay diinta ilaahay xambaarsani in si xaqiiqo ugu dhaadhaco oo aanu kelmadda ka warwareegin maalinba waxa jeega aanu saarin oo aanu ku soo gabanin iimaanka ayay ka mid tahay way akhriyaan unsur akhaaka zaaliman aw madluuma wadaad waliba wuu akhriyaa wadaad waliba wuu akhriyaa walaalkaa u hiili hadduu daalim yahay hadduu madluum yahayna u hiili wadaad waliba wuu akhriyaa ما إيجان عدادس كي يجيب تلاقوها يوم إيجان ومالين كما هدلان هذا عرتاي هذا دولتاي هذا بطهاي بيبات هذا تلاقوها يوم إيجان
dareenkooda ma qiimeeyaan ma iimaankii markaa sidee laysu aamini karaa marka maalinta ay soo baxdo arrintaasi ay soo baxdana aad soo kacdo dhibta ummaddana aad ka hadli weydo sidee lagu aamini karaa markaad eegi weydo islaamku waa xaqiiqo iimaanku islaamku waa xaqiiqo kama warramo wax muhmala oo aan la ogeyn kama warramo qofka muuminka diinta xabaarsanina inuu mar walba xaqiiqada ka warramo waa muhiim weeyaan war maxaa la isku haystaa ku qiimee diintaada ku qiimee miyay bannaan tahay mise ma bannaana toosu abbaar arrinta toosu abbaar ma waxaad leedahay ma bannaana inay kala godo Soomaaliya ma waxaad leedahay inaad godaan ma bannaana oo diinta idin xaaraantinimaysay idinka xaaraantinimaysay runta iyo xaqiiqada waxa weeye way ka weecanayaan xaqiiqada way ka weecanayaan islaamkuna waa xaaraantinimeeyey waxa la yidhaha marin habaabinta waa xaaraantinimeeyey in bulshada la marin habaabiyo waa xaaraantinimeeyey nabiyullaahi maxamed sala allahu calayhi wasalam dareenka qofku qiimaha uu islaamka ku leeyahay nebi maxamed baa sala allahu calayhi wasalam maalintuu maka furtay ayay ansaari guuxday ansaari waa ayo waa reer madiina waa dadkii nebiga sala allahu calayhi wasalam markii ay qurayshi eriday soo dhoweeyey ee dejiyey magaaladoodii ee u gargaaray ee diinta quweeyey waa dadka waxay yidhaahdeen wallaahi maanta mar haddii uu magaaladii maka ee uu ku dhashay ee uu ku barbaaray mar haddii uu furtay dee kuwa soo noqon maayo halkiisa isu iska deg dareenkaasaa dhashay wuxuu yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalam haddaan noolahayna idinkaan idinla noolaanaya haddaan dhintana halkiinna ayaan ku dhimanaya dareenka dadka in la ilaaliyo waa shay aad iyo aad u qiimo badan in la qiimeeyaana waa nolosha ayay ka mid tahay in ay qiimeeyaan intaanad hadlin qiimee sababta eeg maxaa keenay dhibtan miyay kordhayaan mise way siyaadayaan sababta eeg qiimee nabiyullaahi maxamed sala allahu calayhi wasalam ayaa warqad u diray boqorkii roomaanka ayuu warqad u diray markay warqaddii gaadhay ayuu yidhi war bal ninkan warqadda ii soo qorayaa yaqaanoo garanaya cid garanaysa bal iiga soo eega waddanka waxaa la helay abu sufyaan oo waddanka markaa yimid waxaa la yidhi yaa ugu dhow ninkana ugu dhow bay yidhahdeen abu sufyaan hortiisuu soo fadhiisiiyey su'aaluu weydiiyey su'aalaha maxaa ka mid ahaa miyay sii siyaadayaan mise way naaqusmayaan mise way dhinmayaan bal qiimayntiisa eeg ninkani diinta uu ku yeedhayo dadka raacaya ayuu weydiiyey nasabkiisa ayuu weydiiyey cidima ka noqotaa buu yidhi intay diintii dib u soo gasho cidima ka noqotaa miyay siyaadayaan mise way kordhayaan waxaan leeyahay wadaadada waa koox maha wadaadada oo dhan waa in caan ah xaqa ilaahay subxaanahu wa tacaala waa mid keliya maaha sida aad doonaysaan inaad u turjubtaan
أما أدوها هذا الشان سيدا تعيشين ونادوها هذا الشان ما وحقيقة وحوي وحجنا إن هذا الشان ويا أديك لا تستانس تاسو حوي وقرض ويا قرض الله بعض أكله وقرض من نبضانك من نمو من نمو محاطة وقرض ما أنت دون يس الصوماليين يمديد الصومالي لاني الصوماليين يمديدو وحا وفلا شواب وفلا والصومالية أيام أنت سيك الصلاة إياك أيام أنت سيك الصلاة إياك نحدودي أيام أنت سيك الصعود أن دبك لقادني عدا من نبات كلام باقي وايا حمر جدهدي أي مدين كري لا يهي كسمايي حمر بوي سكاني كري لا يهي قروي حمر بوي سكاني كري لا يهي أو ما أنت كده بيس سيك الفوقاني من لماذا ودون يا واضح ومشغولين وضدكم مشغولين يا ريت ضدكم مشغولين يا ريت dadka reer muqdisho ama reer Soomaaliya iyaga ayaa u baahan maanta in la xoreeyo iyaga ayaa u baahan maanta yeeyba cunaysa yeeyda in laga xoreeyo waayo 34 sanadood ayay ku heshiin waayeen warsadaynu isu dooranaa 34 sanadood bay ku heshiin waayeen sidaba isu dooranaa iyaga ayaa u baahan maanta in laga xoreeyo waxana ay u muuqataa in ay ku baabiinayaan ay ku qarinayaan dhibaatada ay ka geysteen Soomaaliya ay ka geysteen in ay ku baabiinayaan maalin walba ay oranayaan midnimadiiba lagu xadgudbay midnimadiiba la baabiinaya in ay geed ay kaga dhuuntaan dadka inay u ark ayuun u arag waayo hadday midnimadoon yihiin oo ay ka dhab tahay debarta iyaga dhexdooda hagaagi lahaa iyaga dhexdooda ayaa dawlad dhisan lahaa iyaga dhexdooda ayaa maxaan ku raadin nidaam samaysan lahaa walaalayaal arrintu ma aha arrintu maxaan ku idhaahdaaye mashaakilka maanta taagani waxa weeye waa nolol diid maanta xamar maxaa ka taagan xalay maxaa xamar ka taagan meeliha maxaa ku jira بلغيس نينا ولا قلبي جاga hagelin diin baa la isku haystaa iga qalbigiisa ku jirtay una wardiin la isku ma haystee nolol baa la isku haystaa war waxa saan noqon maayo ayaanu isku haysanaa ninku yiri waxa noqon maysi waxba ma tihid adna waxba ma tihid ninku yiri ma tashanaysid de walaalnimo waa diida adna ma ii talin maysid gabagabo waxa ay ummadaasi u kacsan tahay u taagan tahay waxa weeye waa madax banaani weeye waxa aanu taaganay waa madax banaani wixii kale ee ka wixii soo hormara ama ku xiga de waa dagaal ha ku qoostaan ku yar iyo kuwa isla saarnay
كوير يا كوين سيدا صار